filimka waxa uu ku bilaabanayaa jawi mugdi ah oo cabsi leh. Kim In-nam oo ah nin dilaa ah oo horey uga tirsanaa sirdoonka waddanka Koonfurta Kuuriya haddana la shaqaysta kooxo maafiya ah isaga oo qaata qandaraas dilal qorshaysan ayaa waxa uu ku jiraa howlgalkiisii ugu dambeeyay ee uu ka fulinayo waddanka Japan. Waa nin degan oo dagaalyahan ah oo aan muujinin haba yaraatee wax naxariis ah, balse qalbigiisa waxaa ka buuxa sir qarsoon. Dhanka kale waddanka Thailand waxaa ku nool Yong Ju oo ah hooyo kaligeed korisa gabadheeda yar ee lagu magacaabo Yu Ming. Maalinteeda caadiga ah subax hore ayay gabadheeda iskuulka u dirtay iyadoo u dhiibtay macallimadeeda, taas oo u ballan qaaday inay dib ugu soo celin doonto gabadheeda marka iskuulka laga soo baxo. Laakiin macallimadii iskuulka ballantii ay qaaday kama aysan soo bixin. Yu Ming oo ah gabadha yar waxaa loo diyaariyey qorshe afduub, waxaana afduubtay koox maafiya ah oo ka ganacsata xubnaha jirka bani'aadamka, gaar ahaan kuwa carruurta. Yong Ju markay ogaatay waxa dhacay waxay la xiriirtay booliiska, waxayna u sheegtay in gabadheeda la afduubtay. Sidoo kale waxay la xiriirtay qof ay saaxiibkeed aad isugu dhawaayeen, kaas oo ay u sheegtay in gabadheeda la afduubtay isla markaana ay uga baahan tahay caawinaad degdeg ah. Laakiin nasiib darro waxyar kadib iyada ayaaba la dilay. Booliiska waddanka Thailand ayaa waxay meydka gabadha lagu magacaabo Yong Ju ka heleen xeebta, waxayna ku wareejiyeen dowladda waddanka Koonfurta Kuuriya. In-nam marka uu maqlay geerida saaxiibtiis hore ee Yong Ju aad ayuu uga naxay, wuxuuna dib ugu laabtay waddanka Koonfurta Kuuriya si uu uga qayb galo aaska saaxiibtiis. Balse markuu dul istaagay meydkeeda, booliiska ayaa u sheegay in meydka laga soo helay xeebaha waddanka Thailand, waxaana lagu wareejiyey boorso yar oo ay wadatay. Boorsadaas ayuu ku dhex arkay sawirada gabadhiisa yar, wuxuuna ku aqoonsaday inay gabadhaasi tahay gabadhiisa, magaca aabaheed oo ah magaciisa, iyo sidoo kale iyadoo aad ugu ekeed aabaheed. Halkaas waxaa ka muuqata inuu labadooda xiriir jacayl ka dhexeeyey. In-nam wuxuu xaqiiqsaday in Yu Ming oo ah gabadha yar ee la afduubtay ay tahay gabadhiisa oo uusan horay u ogeyn inuu isaga dhalay. Markuu ogaaday gabadha yar inuu isaga dhalay, noloshiisa ayaa isbedeshay. Waxa uuna go'aansaday inuu u dagaalamo soo badbaadinta gabadhiisa yar ee ku jirta gacanta kooxaha maafiyada ah. Isla daqiiqadahaas ayuu dareemay culays iyo ciil fara badan, wuxuuna naftiisa ka ballan qaaday inuu soo heli doono cidda ka dambaysa dilka saaxiibtiis iyo sidoo kale afduubka gabadhiisa yar. Dhanka kale muuqaalka waxaa ka soo muuqanaya Ray oo isna ah nin maafiya ah oo doonaya inuu u aargudo walaalkiis oo la dilay. Ray isna waa nin dilaa xariif ah oo aan nixin, wuxuuna bilaabay inuu raadiyo In-nam isagoo u arka inuu qayb ka ahaa dilka walaalkiis, waana sababta uu u afduubtay gabadha yar ee uu dhalay In-nam isla markaana u dilay saaxiibtiis hore. Laga bilaabo halkaas filimka wuxuu isu bedelayaa kala carar, dagaal iyo is-ugaarsi uu dhiig badan ku daatay, kaas oo u dhexeeya labada nin. Intaasi kadib In-nam waxa uu u safrayaa waddanka Thailand, halkaasi waxa uu ka helayaa caawinaad laba qof oo saaxiibtiis ay is yaqaaneen. Iyagoo wada socda ayaa waxay ogaanayaan in gabadha yar ee afduubteen kooxo dambiilayaal ah oo ka ganacsada xubnaha carruurta, kuwaas oo ku iibiya suuq madow. Sawirada carruurta la afduubtay oo la ciqaabayo iyo sidoo kale qol madow oo mugdi ah oo qaliinka loogu talagalay ayay ku arkeen halkaas, waxayna go'aansadeen inay tallaabo degdeg ah qaadaan. Laakiin In-nam waqti badan ma hayo, waxa uu go'aansaday inuu soo badbaadiyo gabadhiisa yar. Waxa uuna gacantiisa ku dilayaa qaar ka mid a madaxda ugu waaweyn kooxda maafiyada, waxa uuna mid mid u ciqaabayaa dhammaanba dadka gacanta ka geystay afduubka gabadhiisa. Waxaana ka muuqata siday uga go'an tahay inuu wax walba u sameeyo sidii uu kusoo badbaadin lahaa gabadhiisa. Laakiin halista weli ma dhammaanin. Ray waxa uu daba joogaa isna In-nam, meel walba uu tagana waa uu ka daba tegayaa. Dagaalkii ugu horreeyey labadoodana waxa uu ku dhex maray dhisme carruurta lasoo afduubtay lagu qariyo, halkaas oo dagaal foolka fool ah uu ku dhex maray kooxda maafiyada ah ninka ugu sarreeya oo ah Ray iyo sidoo kale In-nam oo ah ninka gabadhiisa lasoo afduubtay ee halkaas lagu soo qariyey. Si dirqi ah ayuu maalintaasi In-nam halkaasi naftiisa ugala baxsaday. Laakiin Ray weli wuu daba joogaa oo kama uusan harin, isagoo ku tuhmaya dilka walaalkiis inuu ninkan ka dambeeyo. In-nam waxa uu tegayaa oo uu gudaha u gelayaa halka carruurta lagu hayo. Halkaasi Yu Ming oo ah gabadhiisa yar waxaa loogu diyaarinayaa qaliin wadnaha ah si gabadha yar oo aan waxba galabsan loogala baxo xubnaha jirkeeda. In-nam waxa uu kusoo dhexdhacayaa meesha uu qaliinka ka socdo. Dagaal weyn ayaana halkaasi ka qarxaya, waxaana la joojinayaa qorshaha qaliinka ee halkaas ka socday. In-nam waxaa sidaasi ugu suuro gashay inuu soo qaato gabadhiisa yar, waxa uuna u dhiibayaa mid ka mid a asxaabtiisa la socotay. Booliiska waddanka Thailand oo lacag lagu laaluushay ayaa sidoo kale qayb ka ah hawsha meesha ka socota. Ray sidaasi ugama harin ee waxa uu uga sii daba tegay guriga uu In-nam ku nool yahay, waxa uuna ka soo xaday gabadha yar isaga oo kusoo qariyey sanduuq yar, kaas oo uu kusoo qaatay qaybta dambe ee gaariga. In-nam mar kale waxa uu raadiyey gabadhiisa, waxa uuna arkay gaariga Ray, uuna kasoo daba cararay isagoo ogaaday in gabadhiisa ay gaarigaas saaran tahay. Waxaana labadooda dhex maray dagaal adag, kaas oo sababay In-nam uu soo gaaro dhaawac aad u culus. Waxa uuna ugu dambeyn sameeyey xeelad aad u weyn, maadaama uu ogaaday inuusan tabar haynin. Waxa uu qarxiyey
qarxiyey bam uu gacanta ku hayay, isla markaasna waxa uu daaqada kala booday sanduuqa ay gabadhiisa ku jirto. kadibna waxa uu gabadha u dhiibay gabar isaga la socotay, wuxuuna dib ugu laabtay gaariga si uu usoo hubsado geerida Ray. marka uu soo laabtay waxa uu arkay Ray oo nool isla markaana gaariga dhex fadhiya. waxa uuna bilaabay inuu mar kale la dagaalamo, weliba noloshiisa ayuu halis geliyey, balse markan Inam ma sii dagaalami karo maadaama uu qabo dhaawac aad u culus. sidaasi darteed waxa uu go'aan ku qaatay in wax walba oo dhaca uu ninkan geeri ku hubsado. waxa uuna marka hore isaga oo indhaha la raacaya hubsaday in gabadhiisa ee meel nabada tagtay. waxa uu ku guuleystay inuu badbaadiyo gabadhiisa yar, balse waxa uu dareemayaa in noloshiisa ay tahay gabaabsi maadaama uu qabo dhaawac aad u culus. waxa uuna ka walwalayaa isaga oo xaaladan ku sugan inuusan sii difaaci karin gabadhiisa yar. sidaasi darteed maadaama qofka gabadhiisa dili raba uu gaariga la saaran yahay, waxa uu go'aansaday inuu nafsadiisa u huro si ay iyada ugu noolaato nolol raaxo leh. waxa uuna qarxinayaa bam gacantiisa ku jira. isaga iyo Ray waxay ku dhimanayaan qaraxa. filimkana waxa uu kusoo dhammaanayaa muuqaal murugo iyo rajo isugu jira. Yui oo ah gabadha saaxiibtiisa ah ee uu gabadhiisa yar ku aaminay ayaa gabadha la aadaysa wadanka Panama, iyadoo horay usii qaadatay dokumentiyo iyo lacag uu Inam usii diyaariyey. sidaasna waxay gabadha yar ku heshay nolol cusub oo ammaan ah. sawirka ugu dambeeyana waxa uu muujinayaa Yuming oo qosleysa iyo sawir guriga lagu xardhay oo ka kooban iyada, hooyadeed Yongju iyo aabaheed Inam oo naftiisa u huray. haddaba haddii aad ka heshay muuqaalkan fadlan like saar, kuna soo biir channelkeena adigoo subscribe taabanaya. mahadsanid.